gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa maanta oo taariikhdu tahay 19/11/2019 wuxuu isku shaandhayn ku sameeyay xoghayaasha xisbiga wadani. Cabdilaahi Bootaan Warsame ayaa xisbigu u magacaabay xoghayaha xuquuqul insaanka iyo xidhiidhka hay'adaha aan dowliga ahayn. Siyaasi Cabdilaahi waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii ka qayb qaadatay asaaskii xisbiga wadani, isagoo intii uu xisbigu jirayba ka soo qayb qaatay marxaladii kala duwanaa ee xisbigu soo maray. waxa kale siyaasigan rogcadaaga ah lagu xasuustaa xilligii doorashooyinka sida uu saameynta ugu lahaa gobolka Togdheer oo xilligaas uu kaga jiray ololaha xisbiga. dhanka kale wuxuu leeyahay waayo aragnimo shaqo, isagoo ka tirsanaa miiska saraakiisha hay'adaha WHO, UNICEF iyo weliba Civil Service Commission. Taageerayaasha xisbiga ayaa si weyn ugu diirsaday guud ahaanba dhammaan siyaasiyiintan xilalka loo soo magacaabay, iyagoo baraha bulshada si weyn ugaga dareen celiyey uguna hambaliyeeyay aqoon-yahaniinta kala duwan, kuna tilmaamay arrintan tallaabo dardar gelinaysa xisbiga iyo howlgalladiisa.